nabadgelyo korkaaga ha ahaato kusoo dhawow barashada xisaabta xilli walba goor walba iyo weliba waqti walba oo aad adigu jeceshahay daawade magacaygu waa Shiine Gestir waxaan caawa video gaaban aan ku baranaynaa xisaabta trigonometriga sida loogu xisaabiyo Microsoft Excel inagoo raadinayna cabirka xaglaha tusaalaheena koowaad waxaana la yiraahday find angle x soo hela xagasha x daawade marka koowaad waxa muhiim ah inaan garanayno saddexda qaacido ay leedahay xisaabta midda aan ku soo xalinayno xagashana loo diray waxaan haysanaa dhinacii ugu dheeraa kaasoo la yiraahdo hypotenuse waxaan kaloo haysanaa xagashana loo diray dhinaca deriska la ah kaasoo la yiraahdo adjacent hypotenuse iyo adjacent ayaan haysanaaye saddexda qaacido mideeba kulansatay hypotenuse iyo adjacent ama lagu helaa halkan waxaa inooga muuqda saddexdii qaacido sin waxaa lagu helaa opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse sin uma bahnin cosine ayaa waxaa lagu helaa adjacent loo qaybiyey hypotenuse waxaan haysanaa hypotenuse oo halkan ah iyo xagasha dariskeeda oo ah adjacent markaa sidaa darteed waxaan isticmaalaynaa cos function waxaan ogaanay inay tahay cos qaacidada aan isticmaalino waxaan dhahaynaa marka hypotenuse and adjacent iyo angle saddexdaas ayaan haysanaa hypotenuse marka maxaan haysanaa hypotenuse waxaan haysanaa 5 centimeter ka soo qaad waa hagaag adjacent maxaan haysanaa waxaan haysanaa 3.66 centimeter waxaan raadinaynaa marka waa angle sidaan usoo helaynaa waxaan ku bilaabaynaa calaamadda lamidka waxaan ku qoraynaa decrease waxay noo soo baxay functionkii decrease halkaas ayaa waxaan siinaynaa 2 jeer click markaan 2 jeer click siino ayaa waxaan ku qoraynaa a cos oo ah functionkaan isticmaalino maadaama cosine lagu helo adjacentiga loo qaybiyey hypotenuse-ka a cos functionkiisa noo soo baxay halkaas ayaan 2 jeer click siinayna markaan halka 2 jeer click siino qowska cagaaran gadaashiisa ayaa waxaan ku qoraynaa adjacentiga oo loo qaybiyey hypotenuse-ka adjacentiga maxaan haysanaa 3.66 click c oo loo qaybiyey dhe markaas hypotenuse-ka aan haysano 5 centimeter kadib ayaa waxaan kusoo xiraynaa 2 qaws kadib dheh enter waxay noo soo baxday 42.95 bal waxaan dhahaynaa aan iska tirtirno lambarada decimalka ah waxaan aadaynaa falaadhan kuwaasoo inaga tirtiraya lambarada decimalka kadib waxay noo soo baxday number buuxo oo ah 43 degrees sidaas ayaan waxaan ku ogaanay xagashana loo diray inay tahay 43 degrees waxaan u gudagalaynaa tusaalaheena labaad isagana waxaana la yiraahday find x soo hela xagasha x xagashana loo diray x waxaan haysanaa dhinaca deriska la ah kaasi waxaa la yiraahdaa adjacent waxaan kaloo haysanaa dhinaca ka soo horjeeda kaasoo magaciisa la yiraahdo opposite adjacent iyo opposite ayaan haysanaaye saddexdii qaacido mideebaa kulansatay adjacent iyo opposite saddexdii qaacido ayaan soo fiirinaa markaas saddexda qaacido tangent ayaa waxay kulansatay opposite loo qaybiyey adjacent sidaa darteed waxaan ogaanay hadda inay tahay tangent qaacidada aan isticmaalino okay waxaan dhahaynaa marka adjacent halkan adjacent waxaan haysanaa 4 centimeter hay opposite-na opposite waxaan haysanaa 9 centimeter waxaana loo diray markaa xagasha cabirkeeda
xagasha cabirkeeda ayaana laga rabaa inaan soo helno waxaan kaloo sameynaynaa sidii oo kale waxaan ku bilaabaynaa calaamadda la midka ah waxaan ku qoraynaa decrease waxay noo soo baxay functionka decrease laba jeer ayaan click siinaynaa haddana waxaan ku qoraynaa a tangent a10 ayaa noo soo baxday u taagan a tangent taas ayaan isagana sidoo kale laba jeer click siinaynaa kadib ayaa waxaan ku qoraynaa opposite-ka oo loo qaybiyey adjacent-ga opposite-ka maxaan haysanaa 9 click c kadib u qaybi adjacent-ga oon haysano 4 kadib waxaad ku soo xidhaa laba qaws kadib enter dheh waxaa kuu soo baxday 66.338 waxaan iska baabiinaynaa lambarada decimalka ah si ay tiro buuxda noogu soo baxdo waxay noo soo baxday 66 degrees saas ayaa waxaan kusoo helnay cabirka xagashii aan raadinaynay waxaan u gudagalaynaa tusaalaheena ugu dambeeya sidoo kale waxaana la yiraahday find angle x soo hela xagasha x xagasha x waxaan haysanaa dhinaca ka soo horjeeda waxaa la yiraahdaa opposite waxaan kaloo haysanaa dhinaca ugu dheer saddex xagalka halka nooga muuqda kaasoo magaciisa la yiraahdo hypotenuse opposite iyo hypotenuse ayaan haysanaaye saddexdii qaacido midabaa kulansatay opposite iyo hypotenuse saddexdii qaacido waa kuba sin ayaa waxay kulansatay in lagu helo opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse sidaa darteed sin waxaa weeye qaacidada aan isticmaalino waxaan dhahaynaa hypotenuse and opposite iyo angle hypotenuse maxaan haysanaa 9.8 opposite-na maxaa haysanaa 4 9.8 centimeter iyadana centimeter marka waxaan raadinaynaa angle sidoo kale waxaan ku bilaabaynaa calaamadda la midkeed waxaan qoraynaa decrease waxay noo soo baxday functionka decrease laba jeer ayaan click siinaynaa markaan laba jeer click siino ayaa waxaan ku qoraynaa a sin markaan ku qorno waxay noo soo baxday functionka a sin kadib ayaan laba jeer isagana sidoo kale click siinaynaa waxay noo soo baxday a sin waxay noo furtay qaws cagaaran halkaas ayaa waxaan ku qoraynaa opposite-ka oo loo qaybiyey hypotenuse-ka opposite-ka maxaan haysanaa 4 click c oo loo qaybiyey dhimarka hypotenuse-ka oo ah 9.8 kadib waxaan kusoo xirinaa sidoo kale laba qaws waxaan dhahaynaa enter waxay noo soo baxday 24 waxaan tegaynaa halkan saan decimalka isaga reebno 24 degrees ayaan waxaan soo helnay xagashana loo diray daawade saddexda xaglood waan soo helnay haddaan rabno marka inaan hubino waxaan ku hubin karnaa hubin aan dhahno waxaan ku hubin karnaa waxaan ognahay dhammaanteen xagashan iyo xagashan iyo xagashan markii la isku daro inay yihiin 180 dhammaan saddex xagalada xaglahooda markii la isku geeyo waa 180 intaas waan ognahay waxaan haysanaa marka xagashan oo ah 90 degree iyo xagashan oon hadda soo helnay 24 degrees marka xagashan ayaa naga maqan xagashan waxaan ku soo heli karnaa wadarta guud oo ah 180 oo laga jaray 180 laga jaray 90 degree oo xagasha quman ah oo laga jaray 24 degree oo aan hadda soo helnay waxay la mid tahay 66 waxaan isku daraynaa xagashan oon soo helnay hadda 66 iyo xagasha quman oo aan haysano oo aan naqaano inay tahay 90 degree oon ku sii darnay xagashii hore oon soo helnay 24 markii intaa la isku geeyo hadday 180 noqoto xisaabta aan soo xalinay waa sax bal aan sugeyno waxaan ku bilaabaynaa calaamadda la midka waxaan dhahaynaa 90 degree oo ah xagasha quman lagu daray xagashii markii hore aan soo helnay 24 degree oo lagu daray xagasha aan hadda soo helnay 66 degree waa imisa enter 132 ay soo baxday maxaa khaldan waxaan ku noqonaynaa hubinteeni 180 degree laga jaray 90 degree
oo laga sii jaray 24 degree waa imisa waa 66 haye waxaan dhahaynaa marka halkan ayaan dib ugu noqonaynaa waxaan dhahaynaa 90 degree lagu daray 24 degree oon soo helnay markii hore oo lagu daray 66 degree oon soo helnay hadda waa inay 180 noqotaa waxay noqotay 180 degrees khaladkii aan markii hore sameynay meeshii aan dhihi lahayn plus ayaan waxaan dhahnay minus taasi waad ka raali ahaanaysaan daawadayaal inta aan video la mid ah ku kulmi doono waxaan idin si dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh